Miis weydiisay shanta dhisme ee maanta duruuraha dushooda maraya. Maanta muuqaalkan waxaa idinkula wadaagi doonaa shanta dhisme ee adduunka ugu dheer waddanka ku yaalaan iyo mid kasta dhererkiisa intuu yahay. Halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan kusoo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. Waxaan ku bilaabaynaa kaalinta shanaad oo ay fadhido dowladda Shiinaha waana dhismaha Banyan Finance Center oo ku yaala magaalada Shenzhen. Dhererka dhismahan wuxuu gaarayaa 599 mitir. Dhismahan waa xarun maaliyadeed wuxuuna xasuusinayaa in dhaqaaluhu uu yahay matoorka kiciya hami kasta oo bini'aadamku leeyahay, balse nolosha dhabta ah aysan ku koobnayn kaliya dhagaxyo dhisturta saaray. Kaalinta afraad waa Makka Royal Clock Tower Sacuudi Carabiya. Waxaan u safraynaa dhulka barakeysan ee Makka, halkaas uu ku yaalo dhismaha Makka Royal Clock Tower. Dhererkiisu uu gaarayo 601 mitir. Dhismahan ma ahan kaliya mid dhirir leh, balse waa midka ugu saameynta badan nolosha muslimiinta, maadaama uu ku ag yaala Kacbada sharafta leh. Saacadda weyn ee ku kortaal waxay xasuusin u tahay malaayiin qof oo xujay ah in waqtigu uu yahay amaana, lagana rabo qof kasto anaga naga mid inuu ugu faa'iideysto waqtiga wax waxtar u leh adduunyadiisa iyo aakhiradiisa. Aan ogaana in la weydiin doono waqtiga halka ku bixinay maalinta qiyaama. Nolosha dhabta ah ay tahay mid aakhira, lana rabo qof kasta inuu u shaqeysto. Kaalinta saddexaad waxaa mar kale fadhida dowladda Shiinaha iyo dhismaheeda caanka ee Shanghai Tower. Dhererka dhismahan wuxuu gaarayaa 632 mitir. Dhismahan wuxuu leeyahay qaab wareegsan oo loogu talagalay inuu iska difaaco dabaysha xooggan. Shiinuhu waxay dunida tustay in cilmiga dhismaha uu yahay hubka koowaad ee lagu muujiyo quwadda waddan leeyahay, waana mid ka mid ah dhismooyinka ugu quruxda badan ee indhaha qaban kara. Haddii aad intaas soo gaartay, aan ku wada salino xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kaalinta labaad waa Merdeka 118 Malaysia. Kaalinta labaad waxaa sanadaha dambe la wareegtay shaqada yaab kale ee Merdeka 118 ee ku taala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Dhererka dhismahan wuxuu gaarayaa ku dhawaad 679 mitir. Magaca Merdeka wuxuu la macno yahay xurriyad. Malaysia oo ah waddan muslima waxay dunida tustay inay ku tartami karaan dhinac kasta. Dhismahan wuxuu ka turjumayaa xurriyadda iyo horumarka ay ummadi gaari karto markay isku darsato aqoon iyo maamul suuban. Ugu dambeyntii waxaan soo gaaray nambarka koowaad oo in ka badan 15 sano aysan cidna ka sare marin, waana Burj Khalifa oo ku yaala magaalada Dubai. Dhererka dhismahan wuxuu gaarayaa 828 mitir. Dhismahan wuxuu ka kooban yahay 163 dabaq, waana mid la yaab leh dhinac kasta. Laakiin markaad aragto dhismahan waxaad soo xasuusinaysaa xadiiskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaasoo ku sheegay in dadka ay ku tartami doonaan dhismaha dhaadheer markay saacadda qiyaamaha ay soo dhawaato. Dubai waxay dhistay wax adduunka oo dhan ka yaabsaday, taasoo muujinaysa in hamiga bini'aadamka uusan lahayn xuduud. Ma is leedahay in dhismahan mid ka dheer la dhisi doono sanadaha soo socda? Fadlan nagula wadaag fikirkaaga qaybta faalada. Beeshka follow leh video like sar muuqaalka si share gareemasan.